taleefanada casriga ah iyo shaashadaha telefishinada ayaa si isu soo taraysa uga mid noqday nolol maalmeedka carruurta Soomaaliyeed gaar ahaan magaalooyinka waaweyn. Inkastoo tiknoolajiyadu ay bixiso fursado waxbarasho iyo madadaalo, khubarada caafimaadku waxay ka digayaan in isticmaalka xad-dhaafka ee shaashadaha gaar ahaan marka uusan jirin kormeer iyo hagid waalid. Dr. Maxamuud Ciyow oo ku takhasusay caafimaadka carruurta ayaa sheegay in isticmaalka xad-dhaafka ee taleefanada casriga iyo aaladaha kale ee elektarooniga uu saameyn ku yeelan karo koritaanka maskaxda carruurta. hadda waxa aad noogu badan ilmaha aan hadlaynin, hadduu hadlane waxa uu ku hadlaayo luqad aan la fahmi karin waayo, waa waxa uu ka arkay teknolojiyada. Baseskaas marka oo maskaxdiisa ama aqoonta laga rabay in lagu kordhiyo iyo waxaan marka waxbarashada iyo wixii dhan delay ku dhacayo karaahiyeysanaaho pleasure ma ahan, waa culays ay ku noqonaysaa. Marka cunuga wuxuu baris ugu jiraaba inuu quraan diid noqday iyo dugsi diid noqday iyo waxbarashada inuu diido oo maanta oo dhan waxyaabahan bas oo ku xiran haddii uu waayo oo hinta badiyo markuu helana farxad oo dareemo in ay ka fiican tahay ilmaha guryaha dhexdooda inta lagu haayo teknolojiyadana loo dhiibo. waxyaabahaas oo dhan lagu kaaftoomi karaa in banaanka hor loo soo saaro ilmaha facdiisa ah ama ilmaha da'diisa ah oo la falgalo. Dhanka kale, hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa ku talinaysa in carruurta ka yar 2 sano aan loo ogolaan isticmaalka shaashadaha marka laga reebo muuqaalada wada sheekeysiga. Sidoo kale, carruurta da'doodu u dhaxayso 2 ilaa 5 sano waxaa lagula talinayaa in waqtiga ay ku qaataan shaashadaha uusan ka badnaan 1 saac maalintii. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo xubnaha bulshada aan la hadalnay ayaa sheegay inay ku adag tahay in carruurta ay ka joojiyaan isticmaalka taleefanada casriga ah. waagii hore markaa yareen waxaa waaye waxyaaba badan uu maaweeli jiray sida banaanka ku ciyaarna camal inaan isdhexgal sameyno. laakiin hadda waxaa jirto ilmaha yaraay taleefanka inay qaataan yaraa markaa xaafad imaado taleefanka ay qaadanayaan taleefanka isticmaalayaan hami kale ma laha maskaxdooda waa dhuntay waxbarashada waa ku liitaan. sanadkaana iskuulgee meel madrasa la geeyey alfacmaal waa dhaafi lahaa haween kasta oo kusoo celin lahaa hal maxaa baratay shan maxaa baratay alfacmaal waa dhaafsiin lahaa. dhibka waxaa u keenay waxaa waaye taleefankaas qaab baa lagu celin wallaahi taleefanka carruurta wuxuu ku hayaa dhibaato badan sida maxaa la dhahaa cunuga markuu ooyo kale inay hooyada kusoo bilowdo inay mobeelka ku aamusiiso maxaa la dhahaa ilaa heer oo cunuga ku noqdo adabtid oo ku noqdo oo la qabsado uusan cuntada cuni waayo. weliba hooyada iyo aabbaha ayaa sabab u ah inay kaydkooda ku ciyaaraan. sababtuna waxay tahay waxay moodayaan in ilmahaas ay ku mashquuliyaan ama ay ku maaweeliyaan telefoonnadaas, laakiin maaweelo ma ahana waa malag ay u dhiibeen. Waxaa xusid mudan in dhaqanka Soomaaliyeed uu ahaan jiray mid qoysaska fiidkii isu yimaadaan, wada sheekaystaan, isla markaana carruurta ka dhageystaan waayo aragnimada iyo sheekooyinka waalidiintooda. Maanta se waqtigaas waxaa si soo taraysa u bedelaya isticmaalka taleefanada casriga ah iyo shaashadaha. Xaawo Nuur, Bilan Media, Muqdisho.